waxaan doonayaa laba qodob inaan ka hadlo ama ugu badnaan saddex qodob oo yaryar. marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo gobolka Banaadir. waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha iyo shacweynaha gobolka Banaadir. waxaan leeyahay Muqdisho iyo Banaadirba waa hooygii ummadda, waa mideeyihii dalka, waa xaruntii midnimada, waa daartii ugu horreysay ee ay Soomaaliya ku soo hilowday, ku midowday waqooyi iyo koonfurba. qof kastoo Soomaaliyeedna hooy iyo u noqotay guri. waa astaantii midnimada qaranka. marka way istaahishaa 13 xildhibaan iyo wax ka badan in ay helaan. caasimaddu sida Ilaahay u doortay labada xaram dhulka guud ahaan adduunweynaha aynu aragnay, laba buqcadood oo barakaysan uu uga doortay Maka iyo Madiina ayaa Ilaahay qadaray una doortay inay u noqoto Soomaali xarun 60kii isugu yimaadaan, ku midoobaan, caasimadii ummadda Soomaaliyeed noqoto. mar labaad burburkii kadib Muqdisho waxay nasiib u heshay in ay haddana 10 sannadood oo jahawareer shirkii Carta 2000 markii la isugu yimid inay mar labaad hooy u noqoto iyo meel ay Soomaaliya ku soo hilowdo, ku midowdo, caasimadoodii dib u soo haybiyaan, isuguna yimaadaan. dawladnimada maanta aan harsanayno ee hana qaadaysa oo aynu dib u dhisayno oo tiyaatarkan shirka caawa aynu ku qabsanay, stadiumkii aynu daah furnay iyo 2000 ilaa hadda dawladnimadeenu horumarka ay gaadhay inay noqoto hooygii isugu keenayay Soomaali ee dib u mideynayay, dib u mideeyo mar labaad inay noqotona nasiib bay u heshay. marka waxaan leeyahay hambalyo mar labaad. Muqdisho matalaad way heshay 13 iyo wax ka badan ba way istaahishaa. maqaamkana qodobka 9aad ee dastuurka ayuu ku xusan yahay. awoodaha golaha shacabka ama baarlamaanka awoodda uu leeyahay weeye. xukuumad ahaan iyo dawlad ahaan iyo dhammaanteenba iyo gobolka Banaadirna waan ka wada shaqaynaynaa. marka labaad waxaan leeyahay hambalyo golaha shacabka inay ku dhiiradaan golayaashii horena ku dhiiran waayeen inay matalaad siiyaan una gartaan go'aamiyaanna Muqdisho gobolka Banaadir inuu matalaad helo. waxaan ugu hambalyeynayaa mar labaad golaha shacabka inay tixgeliyaan codsigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 6 bisha Juun khudbadiisii labada gole uu uga codsaday in ay ansixiyaan matalaadda gobolka Banaadir inuu ka helo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qodobka saddexaad ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya waa nidaam baarlamaaniya isku dhex jira madaxweyne iyo baarlamaaniya, laakiin baysku uu yahay baarlamaanka. shacweynaha Soomaaliyeed xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka ayay igmadeen iyagoo ka wakiila golaha shacabka ay xildhibaanaduna dhaleen ama uu ka yimaadaa ama ay doortaan oo sii wakiishaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu noqdo madaxii qaranka. madaxweynuhu wuxuu magacaabaa oo cumaamadaa oo uu fulinta u igmadaa ra'iisul wasaaruhuna marka uu la tashado madaxweynaha kadib waxa uu soo dhisaa xukuumad. intaasoo dhan marjacood min madaxweyne, ra'iisul wasaare, xukuumad marjaca ay ku noqonayaan waa golaha shacabka. accountable yihiin bayska siyaasadda Soomaaliya. marka siyaasadda Soomaaliya waxa haga baarlamaanka. waa nidaam baarlamaaniya. golaha shacabku budug weyn buu ka yahay. aasaas dawladnimadeena baarlamaanka u ah, saldhig u ah, marjaca sharcigu uu ka soo baxo, awoodnimada lagu helaa waa isaga, dunida aynu ku metelnaa waa isaga, marjaca aynu ku noqonnaa waa isaga, budiga saldhiga iyo aasaaska dawladnimadeenuba waa baarlamaanka. marka wax la aqbali karo ma aha in mar kasta marka baarlamaanka yimaado la yidhaa 3 sano markuu shaqeeyo albaabada ha loo xidho. waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka inay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeenna. habeenadii dhawe siday u shaqeynayeen waynu ogeyn. markii maqribkii rawaxaan waa isu imanayeen ilaa habeenkii bay shaqeynayeen. shaqooyin baa idin yaal, baarlamaan baa tiin, dastuurkaa saldhigu oo shuruucda dalka ugu sarreeya, hay-adda dawladnimada ugu sarreysaana waa idinka. ha aqbalina in la idindaa 3 sano markaa jirtaan kala taga. 10 ninna masiirka dalka ha matalaan, 10 nin sharciyo dejiyayaal ha noqdaan, 10 nin siyaasadda dalka ha hoggaamiyaan. budiga dawladnimada Soomaaliyeed baarlamaanow idinka weeye. idinka awoodda aad nasiiseen baanu ku shaqeynaa. idinka awoodda aad siiseen baa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku shaqeeya. idinka awoodda aad nasiiseen baa ra'iisul wasaaraheenu ku shaqeeya. awoodda aad nasiiseen baa xukuumaddu ku shaqeysa. mar walbana inaad la xisaabtantaan
ويردان سوى حقبتين هل كوا حمرنا إنسان تراهدانا إذن كاسكلا إلا برلمان لصوت دورتي وإذن بدلوا دولة نمد الدلكة يعلن كصومالي يترن نمدنا برلمان وصدق بيسوا إذن كا هيالنا يكلا تجلا إذن يدا ودلان كي هو يدي دل ماذا بري مينو أقبلنا تا برلمانو إذن كا إنه أحسن لك مدحونها يدولة نمدنا يدمانتين وإيشود بربر تاجنا هاي شغدي النقبصة شروع إنه وضع جارسية دلكن دور شهر قف إياها القد أخي إلى دقائق هير كشو دولة وفلين سوانا كل دقمينا شروع الأساس أرتين وابن هتسنتي وقت بدن قادم مايو